markii aad dhegaysanayso qofka ka dhegayso qalbiga waayo qalbigu waa qayb jirkeena ka mid ah kaasoo qabta ama si dhaba uga hadla runta iskudayga kaliya ka akhrin kutubtu waxay kaa saacidayaan inay ku ogeysiiyaan faa'iidada ay leedahay iskudayga balse adiga laga rabaa inaad la timaado iskudayga sumcaddu waa waxa ay kugu garanayaan dadka akhlaaqduse ma garanayaan dadka balse ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa og mar walba uu cimrigayga siyaado waxaa yaraado ihtimaamka aan siinayo dadka waxa ay samaynayaan waxaana igu filan daawashada waxa ay samaynayaan haddii aadan jeclayn inaad wax akhriso haddaba adigu ma helaysid kitaabkii munaasibka ku ahaa inaad akhriso xikmad carbeed ayaa leh mar walboo wax akhrisaa waa mar walboo aad wax cusub sii fahantaa noloshu waxay bartay inaan ku soo ooyo meel aynan iga arkaynin cidna kadibna aan iska soo tiro ilmada oona u soo baxo dadka anigoo dhoola caddaynaya dadka u awoodda badan dunida waa kuwa sii wata socodkooda iyagoo dhoolbiraya xitaa haddii ay ku sugan yihiin duruufta ugu xun guulaha la gaara waxaa ka mid ah inaad gaarto heer aadan cidna caawimaad uga baahnayn oo aad u baahan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keliya bani aadamkuna sidiisaba wuxuu kugu nacaa inaad wax weyddiisato ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu kugu jeclaadaa inaad isaga oo keliya aad wax weyddiisato oo aad baahidaada u sheegato haddaba walaalkayow ama walaashayey si kastoo ay xaaladdu u adag tahay baahidaada cid kale ha u sheegan ilaa allah mooye ha odhan anigu waan wanaagsanahay maxaa yeelay dhammaan iyaguba way wanaagsan yihiin hana odhan waan murugaysanahay maxaa yeelay badankeennu waxaynu nahay kuwo adduunyada ka walwalsan xaaladaheeda kolba isbeddelaya balse waxaad mar kasta tidhaahdaa alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh markii ay ahlu xaqa ka aamusaan baadilka waxay moodayaan ahlu baadilkana in ay ayagu xaqa ku sugan yihiin